Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta booqday dugsiga tababarka ciidanka ee Generaal Dagabadan loogu magac daray ku yaala duleedka galbeed ee magaalada Muqdisho oo uu ka soconayo diiwaangelinta ciidanka xoogga dalka ee nidaamka casriga ah ee loo yaqaano biometric oo sahlaya in xogta askarta loo kaydiyo si nidaamsan si ay xuquuqdooda u helaan si fudud. Ra'iisul Wasaaraha ayaa saraakiisha ciidanka iyo howlwadeennada ka howlan diiwaangelinta u sheegay in ay dardargeliyaan hawshooda. waxa uuna maanta kormeeray diiwaangelinta ciidanka danaba ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkaa ka socotay. Dhanka kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa booqasho aan horey loo sii shaacin ku tagay bangiga dhexe ee Soomaaliya isagoona kulan la yeeshay maamulka sare ee bangiga. waxa uuna ku amray hubinta qarashaadka ay bixiyaan si taxaddar leh si looga hortago in xoolaha dadka ay si qaldan u baxaan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa maamulka bangiga ku adkeeyay ilaalinta amaanada ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed isagoona kula taliyay in nidaamka xisaabaadka bangiyada lacagaha lagu bixiyo lana yareeyo in lacag kaash ah la bixiyo si haddii loo baahdo looga daba tagi karo. Cabdi Fataax Shaarkey, Sab TV, magaalada Muqdisho.